بسم الله الرحمن الرحيم. waa rafiiki oo u muuqda inuu hayo wadadii soo kabashada ma jiro qof u diyaarsan dhacdooyinka naxdinta leh. subaxdii xigtay waxaa soo yeeray war naxdin leh. waa kaligiis oo murugo ku jira xeradiisa. waxaa dhacday arrin naxdin leh oo la helay meedka saaxiibkiis ugu wanaagsanaa ee Mafumu. Fayetsi oo la soo koray Mafumu ayaa hadda quus taagan. dareenka shantii toddobaad ee la soo dhaafay labadan qaangaarka ah waxay ku noolaayeen farxad. 3 libax oo ka weyn Ristan Zibu iyo Nash kadib isbarasho ay ku guuleysteen. markii aan halkaan imid dhammaan libaxyadu waxay ku wareegsanaayeen Mafumu. maanta ayaa la helay in calooshiisa ay jiran tahay. wuxuu u muuqdaa mid fiican wax yar ka hor inta aanan guriga aadin. sidaa darteed ma uusan ahayn mid hubaalaha inuusan xanuunsaneen. wuu yaro cabsanayaa laakiin waxaan hadda helay kifin si aan ugu sheego waxa dhacay wuuna ku sii socdaa. halkan daafurku waa naxdin. Rodney oo ka baqaya in 3 libax ee waaweyn ay weerareen oo ay dileen Mafumu. badbaadada Fayetsi awgeed waa loo kala soocay oo la geliyay xero kale. isla marka uu kifin yimaado waxaa muhiim ah in ay ogaadaan sida uu u dhintay Mafumu iyo in libaxyadii hore ay mas'uul ka ahaayeen. kadib markii ay maqleen warka naxdinta leh ee ku saabsan dhimashada Mafumu, kifin ayaa ula cararay boqortooyada. waxa uu rabaa in uu ogaado haddii ay jiraan wax calaamado ah oo laga yaabo in daaha ay ka faydo haddii ay dileen libaxyadii ka weynaa Ristan Zibu iyo Nash. inkastoo Mafumu iyo Fayetsi ay si farxad leh ugu noolaayeen in ka badan 1 bil, soo bandhigidda libaxyo cusub ayaa had iyo jeer wadata halis. xitaa haddii la sameeyo si taxaddar leh oo ugu macquulsan in weerarada rabshadaha wata ay weli dhici karaan. ma jidho wax cadeen ah oo muuqda. dagaalyahana haddii ay dagaal ku jiraan si kastaba ha ahaatee waxay doonayaan inay dilaan raggaas. sidee kale ayay wax u dhaceen? haddii aad eegto halkan gebi ahaanba ma jiraan wax nabar ah. libaxyada marka ay weeraraan ugaadha waxa ay ka maraan dhabarka dambe iyaga oo ku qabanaya cidiyo xoogan qaniinyo neef qabatin ah kadibna xiraya marinada neefta ee dhibanaha. qoorta eeg wejigiisa. waa quman yahay laakiin caddeemo ma leh. xataa calaamad kuma taal. midda aan waxba soo kordhinayn ayaa ah inaad og tihiin markii aan taleefanka helay waxaan isla markiiba siiri kan waa la dilayaa haddii ay gacanka hadal dhex maraan. waayo libaaxaani waxa uu aad ugu kalsoonaa inuu ka bulsho badan yahay laakiin wuxuu ahaa mid aad u aqli badan. waad og tahay inaan ku fikirayo wax badan si aan u wajahno xaaladda cakiran ee caddeemaha aan lahayn. waa mas aad u sun ah. hal qaniinyo oo cunaha ah ayaa noqon kara dhammaadka nolosha. taasina waa waxa kifin uu aaminsan yahay inay ku dhacday Mafumu. ma garanayo waxaan ku yiraahdo. waxaan u malaynayaa waxa aan u baahanahay inaan sameyno. waxaa laga yaabaa in maanta oo keliya meedka la aaso. waxay u badan tahay markii uu Mafumu dhintay in libaxyadii waaweynaa ay bilaabeen in bakhtiga la baaro oo la kala jeexo. runtu waxa ay tahay in ay dhacdo tani mararka qaarkood laakiin haddii neefku dhinto mararka qaarkood waxaad ogaataa in ay ku dhex dhuntaan
oo ay bilaabaan inay cunaan. maalintaas kadib Mfumu waxaa lagu aasay mid ka mid ah meelaha ugu nabdoon ee boqortooyada. Kifin hadda waxaad soo food saartay 2 daran mid dooro. waxaa laga yeelayo inta soo hartay. Fayetsi hadda si taxaddar leh waa inuu kaligiis u noolaadaa. waxaan si naxariis leh u siin karnaa dareenka nuuca u baahan yahay iyo da'da uu jiro, laakiin ugu dambeyntii wuu kori doonaa. sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan si dhab ah uga fikirno waxa soo socda oo aan jawaabo u hayn xilligan. kaliya waxaan isku dayaynaa inaan ka gudubno xaaladahan iyo sida loola tacaalo duruufaha. kadib markii uu arkay saaxiibadiisa, Fayetsi hadda waa uu xishooday. Kifin ma raba inuu halis u galo libaax yar oo murugaysan, inuu dib ugu celiyo libaaxyadii ka weynaa. waxaad ogaataa inaan libaaxyo la soo shaqeeyay muddo dheer oo si cad u maqan kana tageen dhulkan. haatan isaga waxay ku qaadan doontaa waqti sida dadka dhexdiisa uga gudbi lahaa, laakiin wuu gudbi doonaa wuuna dhaqaaqi doonaa. waxay la micno tahay inaan waqti badan la qaadan doonno oo aan siino isaga fiiro gaar ah. laakiin mustaqbalka fog Kifin waa og yahay in shirkadaha bini'aadamka kaliya aysan ku filnayn. Ristan Sibu iyo Nash ayaa laga saarayaa xerada dhimashadii Mfumu kadib. hadda ayaa la qaadayaa si ay ula kulmaan 3 xubnood ee kale. waxaa dib loogu soo celin doonaa burcadda, inta kale waxaa loogu yeeraa dhalinta xun. shantii isbuuc ee ugu dambeysay 2 koox ayaa 2 meel ku kala noolaa, laakiin si degdeg ah ayay isku garteen. markii uu dhintay Mfumu sida cad, taasi waxay abuurtay xoogaa dhibaato ah. waxaan go'aansanay inaan sameyno ayaa ah inaan kooxdan dib u midowno. hadda dhammaantiin waad isgaranaysaan. tani waa xeradii ugu dambeysay ee maran, laakiin hadda kibirka xun ee dhalinta ayaa sare u kacaya. waxaa hubaal ah in hadda ay jiraan xoogaa dhibaato yar oo deegaanka ah, sababtoo ah ma hayna hal aag oo bilaash ah oo aan ku kala xukumi karno. tani waa caqabad sababtoo ah mar kasta oo aan rabo inaan ku gaafuriga xayawaanka ma suurtoobayso. dib u habeynta boqortooyada waxay gaartay awood, mana jirto wax lacag ah oo lagu dhiso xeryo cusub. tani waxay ku qasabtay Kifin inuu eego meel ka baxsan beerta iyo aagga raaxada. sidaas darteed maanta waxaan dhahayaa hadal dhiirigelin leh. ma jiro wax ka xun inaad isdhiibto intaadan isku dayin ka hor. haddaad guul xaqiijisid waxaad yeelanaysaa saaxiibo been ah iyo cadow run ah. dariiqa guusha ku taagnaaw wax kasta oo dhaca. haddii aan dhammaanteen isku geyno kheyraadkeenna, waxaa laga yaabaa inaan weli badbaadi karno boqortooyada. mudanayaal iyo marwooyin, ku soo dhowaada Kifin Richardson. inkastoo deegaanka iyo shisheeyaha ahi, tani waa dariiqa Kifin ma awoodo inuu iska indho tiro. waxaan ku bilaabayaa iyaga markay yaryar yihiin doonista inay wax bartaan. runtii waa maxay? waxay ku saabsan tahay ganacsatada inay bixiyaan lacagta caymiska si ay u arkaan isaga oo ka hadlaya nolosha libaaxyada. xayawaanka aan la falgalo run ahaantii midkoodna duurjoog ma aha. sida aad wada ogtihiin boqortooyada ama beerta raaxada Botswana, waad ogtihiin sawirkan ilaa adduunka oo dhan dadku waxay leeyihiin kani waa macalinka libaaxyada oo u dhashay Koonfur Afrika.
markii aan akhriyo waxaan isiri halkan ka sii soco dadku waxay u maleynayeen in waxyaalahani aan la qaban karin caqabad kasta oo kugu timaada waxay kuu tilmaamaysaa waddadii aad ku guulaysan lahayd run ahaantii isaga waa mid dadaalaya Kevin wuxuu rajaynayaa inay jiri doonaan boosas badan oo faa'iido u leh boqortooyada dib ugu soo laabashada boqortooyada Fayetsi wuxuu wili u murugaysan yahay saaxiibkiisii ugu wanaagsanaa ee Mafumu iyada oo daryaalka libaaxa ee halis ku jirto Kevin ayaa go'aansaday inay jirto hal xal oo kaliya shaqaalihiisii hore ee beerta libaaxa ee u dhow waxa uu hayaa gool sidaa darteed waxay u eg tahay in Fayetsi uu heli doono lamaane nolosha la wadaagta halow libaaxyadeeda mid ka mid ah ayaa si quus ah ugu baahan lamaane tani waa war aad u fiican sababtoo ah wuxuu labadii maalmood ee la soo dhaafay markasta u yeerayaa Mafumu oo dhintay si uu u iloobo saaxiibkiisii hore hadda waxaa loo yeelayaa lamaane maalinta ku xigta Kevin wuxuu u socdaa beerta u dhow Johannesburg waxay la kulmi doonaan dhowr libaax oo ay ku jiraan goolal da'dooduna ka yar tahay 1 sano Kevin iyo Rodney waxa ay dareemayaan kalsooni ah inay dhallaanka ay wili yihiin kuwa da'yar oo ku filan inay bilaabaan dhisidda xiriirkooda Hello, my sweetheart. Hey, are you coming to a new home? Are you coming to meet Fayetsi? waxay raadinayaan dhadig iyaga la mid ah laakiin waxay arki doonaan labkii murugaysnaa ee Fayetsi waa inaan ku beeraa xoogaa idbin ah waxaa ku jirta gool hal sano jir ah oo kaamil ah laakiin iyada iyo walaasheed ma rabto in la kala saaro waxay muujinayaan inay haystaan kalsooni ah inay ku guulaystaan Fayetsi waxaa u malaynayaa in tani ay tahay dooqa iyo da'da saxda ah ee Fayetsi sababtoo ah wax yar ayay ka yar yihiin waxaa jira laba iyaga ka mid ah wuxuu u baahan yahay xoogaa kalsooni ah oo kor u qaadaysa isaga iyaga oo noloshooda oo dhan ku qaatay beerta libaaxa uma baran in lagu raro gaari yar ugu dambeyntii iyagoo caawinaya dawooyin heer sare ah hadda waxay ku sii jeedaan boqortooyada laakiin imtixaanka ayaa ah Fayetsi ma aqbali doonaa iyaga kadib geeridiisii naxdinta lahayd ee saaxiibkiisii Mafumu hadda Fayetsi wuxuu qarka u saaran yahay inuu la kulmo laba libaax oo aanu aqoon hadda waxa ay soo gaareen boqortooyada Livi iyo Jenny waa markii ugu horeysay oo ay isbartaan waa libaax yaab leh oo ay ka feejigan yihiin barasho wacan kani waa Fayetsi la'aanta saaxiibkiis Mafumu Fayetsi ayaa ka cagajiidaya inuu sameeyo dhaqdhaqaaqa ugu horeeya Kevin ayaa go'aansaday inuu dhaxdhaxaadiye ka noqdo arrinta qosolka leh ayaa ah inay aniga iyo adeegsanayaan markasta uu yimaado si uu la falgalo lamaantiisa aniga dhaxda ayaan ku jiraa waxa aan sameyn doono ayaa ah hadda libaaxyadu waa inay isbartaan waa inuu kaligiis kalsooni helaa aniga si taxaddar leh ayaan halkan uga baxayaa ha isku darsamaan isaga ayay ku xiran tahay inuu hablaha soo jiito libaaxaygiyow waa waqtigii aad aabbo noqon lahayd Kevin si dulqaad leh ayuu u sugayaa ilaa midka kale si buuxda ay isku bartaan